Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan. maanta iyo video cusub oo ka hadli doono dalka Liibiya. channelka subscribe si videoga like gare comment-na xagga hoose ku qor. dalka Liibiya ama State of Libya waa dal carbeed oo ku yaala waqooyiga qaaradda Afrika. wuxuu soo galaa kaalinta sagaalaad xagga dalalka ugu kaydka badan shidaalka ee adduunka. waqooyi waxaa ka xideeya Mediterranean Sea, Masarna waxaa ka xideysaa bari, dalka Suudaanna wuxuu ka xideeyaa koonfur bari, dalka Chad iyo Nigerna waxay ka xideeyaan koonfur, dalka Algeria iyo Tunisna waxay ka xideeyaan galbeed. cabirka dalka Liibiya waa 1,800,000 oo kiiloomitir oo square ah. xagga dalka Liibiya uu soo gelaya kaalinta afaraad ee dalalka ugu waaweyn qaaradda Afrika. tirada dadweynaha ku nool dalka Liibiya sanadkii 2018 wuxuu ahaa 6,871,000 oo qof. xagga dadweynaha dalka Liibiya ay ka kooban yihiin qabaa'ilka loo yaqaano Barbarka ama Amaziiqda. caasimada dalka Liibiya waa Tripoli, waa magaalada ugu weyn ee dalka Liibiya waxayna ku taalaa galbeedka dalka. diinta dalka Liibiya boqolkii 97 waa muslimiin. xagga saddexda soo hadhayn ay Kristan yihiin daa'ifada loo yaqaano Orthodox. afka dadweynaha dalka Liibiya ay ku hadlaan waa af carbeed. lacagta laga isticmaalo dalka Liibiya waxaa loo yaqaanaa diinaar. ra-iisul wasaaraha dalka Liibiya waxaa loo yaqaanaa Fayez Sarraj oo isagu maamula galbeedka Liibiya. xagga kale uu soo galo ninka kale loo yaqaano Khalifa Haftar oo maamula barida Liibiya. dalka Liibiya xornimadiisii wuxuu kala soo noqday gumaystihii Talyaaniga 1947 xagga loo magacaabay boqortooyo sanadkii 1951 kadibna jumhuuriyad loo magacaabay sanadkii 1977. dhaqaalaha dalka Liibiya wuxuu ku tiirsan yahay shidaalka iyo gaasta. xagga Liibiya ay tahay dalka tobnaad ee ugu kayd badan shidaalka adduunka. dalka Liibiya wuxuu dhoofiyaa birta iyo shidaalka iyo gaasta iyo sibirka. waxbarashada dalka Liibiya waa bilaash. caafimaadka dalka Liibiya aad ayuu u sareeyaa xagga dhakhaatiir iyo hosbitaallo. channelka Maxamuud Cabdilaahi Xasan wuxuu ku rajaynayaa daawasho wacan iyo mid qiimo leh.
channelka subscribe si videoga like gare comment xagga hoose ku qor